بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما بعد لما أنت وسلامتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها خيرك وناقة شعل ولا ليال وبرنامج كيني بلغوا عني ولو آية حلقة ديسي لحاد حلقة ما أنت وحانكو قادة ديقي دونا أخلاق ذا ونكسن muhiimadda ay leedahay akhlaaqda wanaagsan iyo waxyaabaha naga caawinaya inaanu kasbanno akhlaaqda wanaagsan iyo akhiiran midka ugu dambeeyo ah faa'iidada ay leedahay akhlaaqda wanaagsan inaan noqoto shakhsi ku sifaysan akhlaaq wanaag faa'iidada ay leedahay walaalayaal akhlaaqda wanaagsan waa ciwaanka iyo calaamadda iyo astaanta lagu garto shacab guuleystay qof walba wuxuu jecel yahay inuu ku sifoobo sifadan aadka u qiimaha badan inuu noqdo mid akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa ay wanaagsan tahay diimahoo idil waa kuwa dadkooda ku booriyaa inay ku sifaysnaadaan akhlaaq wanaag gaar ahaan diinteena islaamka waa diin ku dhisan akhlaaq wanaag waatuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yidhi albiru xusnu lkhuluq khayr iyo wanaag oo dhan waa akhlaaq wanaag rabbi subxaanahu wa tacaala in badan ayuu wuxuu ku ammaanay ambiyadiisa rusushiisa iyo dadkii saalixiinta ahaa inay ahaayeen kuwa akhlaaqdooda iyo dhaqankoodu wanaagsan yahay wuxuu ku ammaanay inay ahaayeen saadiqiin saabiriin muttaqiin iyo kuwa kaloo badan gaar ahaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ku salli xabiibkaada walaal wuxuu ku ammaanay inuu ahaa mid akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa aad iyo aada u weyn tahay wa innaka lacalaa khuluqin cadiim waxaa kugu sugan nebi allow akhlaaq aad iyo aada u weyn rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegaya dadka akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan leh inaan ku dayanno ku dayasho wacan inaanu samayno haddaba walaal waxaan doonayaa qaar ka mid ah ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay akhlaaqda wanaagsan inaan kula wadaago midda koobaad akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan waa sababtuu rabbi u soo diray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo diray nebiga inuu dhammaystiro akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsanaa oo ay rusushii iyo dadkii wanaagsanaa beri jireen ummadahooda innamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la ii soo saaro oo la ii soo dirayba waa inaan dhammaystiro akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan midda labaad akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan diinteena islaamka ah aad iyo aad bay u weynaysay kan ku sifoobaa akhlaaq wanaag iyo dhaqan wanaagna waxay noo sheegtay adduun iyo aakhiraba inuu guulaysanayo waatuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yidhi ma jiro shay la saaraa miisaanka maalinta qiyaame oo ka culus akhlaaq wanaag iyo ilaahay waad ka cabsato midda saddexaad akhlaaqdaada iyo dhaqankaada wanaagsanaadaa walaal waxay ku sababaysaa inay dadka kale ku jeclaadaan inay dadka kale kuu soo dumaan in quluubta dadka kale aada hanatid haddii qof uu xumaan ku gaarsiiyo dhib kugu sameeyo kula dhaqan akhlaaq wanaag rabbi subxaanahu wa tacaala isoo nagu boorinaya akhlaaq wanaag inaanu dadka kula dhaqanno ayuu qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa tastawi alxasanatu wala asayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim khayr iyo wanaag ma simaan kan xumaanta ku gaarsiiyaa dhib kugu sameeyaa ugu bedel kaa dhibta kugu sameeyey mid ka fiican wuxuu kugu sameeyey haddii aad sidaas samaysid oo sida aad ku dhaqantid abaalmarkaada wuxuu yahay in kaa dhibta ku gaarsiiyey uu isku bedelo ilaahay idankii kaannahu waliyun xamiim allahu akbar midda ugu dambaysa akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsanaataa ummad baaqi ku noqonaysaa akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsanaataa ku xiran tahay ummad jiritaankeed hadday akhlaaqda iyo dhaqanka ka halowda ummadda waa ummad dhimatay rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi waidaa aradnaa an nuhlika qarya amarnaa mutra fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqowl haddaanu doono inaanu halaagno qaryo waxaanu amarnaa kuwooda xilka u hayaa kuwooda hogaanka u hayaa ayaanu amarnaa khayr iyo wanaag
markaasay faasiqoobaan oo ay ku caasiyaan waxaana ku sugnaadaa ciqaab waanu tirtirnaa tirtirid buu rabbi subxaanahu wa tacaala yidhi nin gabyaa ayaa wuxuu yidhina وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا waxyaabaha naga caawinayo kasbashada ama helidda akhlaaq wanaagsan waxaa ka kow ah baryada alle inaan Allah weydiisano subxaanahu wa tacaala siduu noogu caawin lahaa akhlaaq wanaagsan dabeecad wanaagsan siduu nabiga sallallahu alayhi wasallam rabbigii u weydiisan jiray oo u oran jiray ilaahu saad abuurkayga u wanaajisay dabeecadeydana u wanaaji waa inaan ku dadaalnaa sidaan u kasban lahayn oon u yeelan lahayn akhlaaq iyo dabeecad wanaagsan wixii lagu dadaalo waa la helaa ilaahay idamkii waa inaan ka fikirnaa saamaynta iyo raadka wanaagsan ay leedahay dabeecadda wanaagsan oo aan markaa jeclaano waa inaan fiirinnaa raadadka dambe xunxun oo ay dabeecadaha xunxun leeyihiin oo aan markaa ku ekaano akhlaaqda teeda wanaagsan kana fogaano akhlaaqda teeda xun sabarka dabeecadaha wanaagsan sabar iyo dhabar adayg bay ku tiirsan yihiin haddaad sabar iyo dhabar adayg leedahay akhlaaqda teeda wanaagsanna naftaad ku tarbiyeynaysaa ood baraysaa teeda xunna naftaad kala dagaalamaysaa ood ka jaraysaa akhlaaqda wanaagsani waxay leedahay fawaa'id aada u tiro badan waxaa ka mid ah inay tahay sabab ka mid ah asbaabta jannada lagu galo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa waxaa la weydiiyey wax u badan ay dadka jannada ku gelayaan nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ku jawaabay taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq alla ka cabsi alla oo laga cabsado iyo dabeecad wanaagsan ayaa ah waxyaalaha u badan ee jannada lagu galo waxaa ka mid ah fawaa'idda akhlaaqda wanaagsan in ay keenayso inuu qofka jeclaado alle subxaana wa tacaala arrinkaasna waxaana tusinayo xadiidka nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee ahaa axabu cibaadi illaahi ila allahi axsanuhum akhlaaqa aw axsanuhum khuluqa alle subxaana wa tacaala agtiisa waxaa addoomaysa loogu jecel badan yahay kuwooda ugu dabeecadda wanaagsan waxaa ka mid ah fawaa'idda akhlaaqda wanaagsani in ay keenayso ay sabab u tahay inuu qofka jeclaado suubanaha arrinkaas sidoo kale waxaana tusinaya xadiidka nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee ahaa ina min axabikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinukum akhlaaqa agtayda waxaa loogu jecel badan yahay oo maalinka qiyaamaha jannada deris lagu noqonayo oo igu soo xigay boos ahaan oo aan jannada deris ku noqonayna kuwiina ugu dabeecadda fiican fawaa'iddeeda waxaa ka mid ah sidoo kale in dadka dabeecadda wanaagsani ay ku tilmaaman yihiin inay yihiin dad khayr badan dad ahlu khayr ah aniga iyo idinka iyo dhammaanteen waxaan alle subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu nagu irsaaqo akhlaaq wanaagsan intaan ku kulmi doonno qaybta toddobaad ee barnaamijka balliquu canii walow aaya waxaan idinkaga teginaa sidaasi iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu